hal qisaan nigu soo gaabin ninba oday inankiisuu damcay inuu jarrabo imtixaan uu ka qaado wuxuu yidhi aabbo dee 20 jir baa tahay 20kaa sano waxaanaad cunaysaan ilaahay aniguunbu iisoo dhiibo biilkayni siinaye maanta waxba ma hayo reerkii bahdi yareed waxba ma hayaane bal wax yar ii keen buu ka yidhi maanta orodo ii soo xoogso wax ii keen ka yar waa inuu hooyo weligii shaqo ma arkin adduunye kama shaqayn hooyadii buu u tago hooyo lacag baan rabaaye isii buu yidhi imisa $10 waa hooyo macaan way soo saarta way siisay aabbihiibuu u yimid oo wiil soo shaqeeyey buu iska dhigay aabba waa kan $10 ahoo wiina soo duceeday uu ka qaaday odayga markaa gargaradaba hortiisa dab ka baxaya bulbul markaasuu qaado isagoo arkaya buu ku riday $10 bul kii yaraa buu eego wax isbeddela yarkii yaraa kuma iman haddana maalin dambe yidhi bal maantana aabba waan ku sugayaa dee ducaqabaa tahe hooyadii buu tago ooye bal wax yarisiyo maxay $5 uu keeno aabba waa maasha allah fariid waaye isagoo arkay dabkii haddana ku tuuray haddana maalin saddexaad islaantii baa tidhi war lacagta beriyahan aad iga gurta halkeed geysaa wuxuu yidhi aabbaa igu yidhi bal ii shaqo tago wax ii keeno dee hooye wax shaqo ma garanaya adigoo baan kaa qaadaa markaabeta dee muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dee in wax ku falayaaban moodaye gargaro hortiisuu dab ka baxyo buu ku tuuraa buu markaa beetan war lacag la gubo anigu ma hayee orad aabbaha u shaqo tago hay wareerina iga tag waryaa almuhim qola xaabo goreys u raacay xaabada see loo soo guraa matacbaan soo raaxo uu soo guray uu keenay lacagtii buu soo helay uu keenay lacagtii buu u fiiqay baa la yidho aabbo markaabuu dhinacanna uu ka hayaa lacagta moogta odaygana u eegay war maxaa jiray buu yidhi maanta aabba lacagtii horeda way ka duwan tahay maanta buu yidhi oo kolkaana dee dabka ka daaday aabbo oo maxaan uga daaya tii horeba soonii ku gurayey ma tii hore hooyaan ka soo qaadaya tan laakiin maanta anaa soo shaqaystay dee baad fahamteen baan u malay diin shayga qiimihiisa waxaad garan markuu dhiig iyo dheecaan iyo wakti uu kaa galo haddaad waxba gelin ma garanaysad qiimihiisa marka diinteenna macaan ilaahayna siiyey inaan shaqadeeda tababarkeega u baxno oon habeenka jimcahana markaska imanno oo masaajideennan maasha allah dhalinyar badan oo khayr badan baa ka dadaalaysa iyo macallimiin iyo culimo badane inaan dadaalkaa diinad ininkuna qaybteenna ka qaadano wada niyooda insha allah dembigeenna allaha dhaaf